Saaxiibayaal, waxaan sameynayay muuqaal oo ku saabsan sida deposit-ka ugu sameyn lahayn Just Market-ka. Marka muuqaalkii ayaa iga fashilmay oo iga halaabay. Marka lacagtiina way soo gashay, muuqaalkiina waa eber ayuu iga noqday oo ii duumi diiday. Marka hadda waxaa rabaa insha Allah inaan kor idinka hago oo idin tuso qofkii yacni markaa ka daalo ama culays ay ku noqotan insha Allah ha ila soo xiriiro aniga ka caawinaya ama fahmi waayo. Sida u jeedin meesha waxaa inoo yaalo hadda account inoo yaalo $30 ku jirto hadda aan kusoo shubay. Akoonkan shirkadda ayaa by automatic u diyaarisay standard waaye. Waa akoonada akoonka ugu fiican ayuu ka mid yahay. Marka haddii aad rabtidna waa soo furan kartaa oo qaybtan openka ayaad ka dooran doontaa adigaa soo furanaya. Marka 3 nooc ayaa jiro akoonada sida u jeedid standard, pro iyo waxaa kaloo jiro raw split mid loo yaqaano. Standardka wuxuu ku fiican yahay sida u jeedid commission ma lahan $10 waaye lacagta ugu yar oo lagu soo shuban karo. Spreadkiisuna waa 0.3 hal bid aad ay ugu yar tahay. Ka waa inta okay qofkii bangi raban asigaas oo kaliya ugu soo shuban karaa oo yacni $10. Okay. Qofkii kale oo u baahan row oo kale isna waxa spreadkiisu waa 0.1 waaye. Leverage-keedu waa isku mid. Commission-ka waa ujeeda kan waa no commission kan kore isku mid ka yihiin. Laakiin waxa ugu yar oo lagu shuban karo waa $200. Sidoo kale kan ugu hooseeya oo raw spread loo yaqaano waa spreadkiisa 0 waaye. Commission-ka isku mid ka wada yihiin. Aan dhahay leverage-ka commission-kan waxa kan per lot ama $10 ayaa waxa laga goosan doonaa $3 ayaa laga goosan doonaa. Ama faa'iido keen ama ha keenin ay $10 waxay ka rabaan inaad $3 ay ka goostaan. 200 u yar. Saddexdaas nooc ayay leeyihiin marka anaga automatic kana shirkadda inoo furtay oo hadda inoo furan. Kaas ayaa deposit ku sameynaynay oo muuqaalkii hore noogu halaabay. Okay. Hadda marka waxaan ku tusi doonaa insha Allah biidinillah habkii loogu shuban lahaa. 3 hab ayuu leeyahay meeshan soo ujeedid wuxuu leeyahay 3 qayb ayuu leeyahay. Yani labadan qayb ayuu leeyahay ka wada. Waxa waaye qaybtan falaarta hoos u jeedo waxa waaye deposit waaye in lacag lagu soo shubo. Qaybtan waa withdrawal in lacag laga bixiyo. Marka waxaan dooranayaa hadda qaybta deposit-ka ah ayaan dooran doonaa falaarta hoos u jeedo. Habab badan ayaa lagu soo shubi karaa soo ujeedid ama crypto ahaan ama bangi ahaan. Qofkii bangi rabo lacagta ugu yar oo ku soo shubi karo waa $10. Qofkii crypto ahaan rabo lacagta ugu yar oo ku soo shubi karo waa $15 wixii ka badan way jiraan. Okay. Ani hadda marka qaabka ku tusayo waxa waaye crypto especially crypto USDT midka loo yaqaano. USDT marka saas ugu dhufto kadib halkan wuxuu isoo saarayaa akoonkii iyo USDT aan soo doortay. Halkan network-ga aad ugu soo shubaysa ayaa ka dooranaysaa haddii aad TRC haddii aad rabinna ERC iyo sidoo kale BEP20. Okay. Midka doontid dooro ama aad jeceshahay kadib amount-iga aad ku soo shubaysid oo $15 ay u yar tahay wixii ka badan aad ku soo shubaysid aad adiga gashatid. Okay. Halaha markaa soo samaysid kadib waxaa leedahay deposit ayaad leedahay. Okay. Ani hadda lacag inaan ku shubo marabo laakiin get aan ku noqonaya oo kora ka haga. Halkan waxa ujeeda wait ayuu ku leeyahay waxaan adeegsan doontaa haddii ay fikiraan noqdo code-kan inta ku yaalo. Code-kan ayaa copy dhihi doontaa. Okay. Copy marka dhahayd meeshan ma xiri doontid dhexda ugu bixi doontaa ama gees ayaad ugu bixisa si aad u tagtid wax loo yaqaano Binance-gaaga. Okay. Anada Binance-gaaga sida ujeedid lacagtii hadda ka baxday ayaa meesha ku dhagan wili. History ahaan back ayaan leeyahay. Okay. Back ayaa leeyahay 78 ujeedid 30 laga saaray. Okay. Aka 30 laga saaray 48 ku soo hartay meesha ujeedid. Okay. Marka aad xaggaas u tuuraysid waxaa leedahay withdraw ayaad leedahay haddii crypto adeegsanaysid. Withdraw markaa dhahdid kadib waxaad ka dooranaysaa midkan ugu hooseeyo withdraw crypto via network kala dooranaysaa. Kadib waxaad ka sii dooranaysaa USDT marka ka dooratid qaybtan kale waxaad dooranaysaa network send via crypto network ayaad dooranaysaa. Kadib halka marka imaadid qaybta sare waxaad gelin doontaa address-ka aad lacagta u diri lahayd. Halkan waxaad gelinaysaa network-gaaga nooca uu yahay network adeegsanaysid. Waa soo fure waa drop down. Ani hadda waxa soo doortay wuxuu ahaa BEP20 haddii aad tidna TRC20 oo ku jira asna
TRC20 waa ka asna qofkii rabo macnaha TRC20 inuu isticmaalo. Ani hadda BEP20 ii dooran, BEP20 ayaan leeyahay. Kadib maxaan leeyahay lacagtii aan ku shubi lahaa ayaan halkan ka dooranaya. Okay, $15 okay oo yar tahay iyo inta adiga aad doonayso ku shubanaysid. Kadib intaas markaa soo dhammaysid waxaa leedahay withdraw ayaad leedahay. Aniga hadda ma doonayo marka inaan lacag ka saaro meeshan oo lacag kale inaan ka saaro ma rabo midii hore oo hadda aan ku shubay iyadaas keliya ayay ahaanayso. Marka meeshan withdraw aad soo dhahayd kadib waxaa lagaa rabaa inaad sugtid. Marka inta meesha processkan uu ku jiro ujeeda waiting uu leeyahay lacagtii uu sugayaa ilaa uu kaaga soo saaro warqadan oo ah okay completed payment completed ilaa uu kaaga soo saaro ma xiraysid. Okay, waa iska sugaysaa, waa imaanaysaa meesha waa sugaysaa oo keliya. Marka uu ku soo dhaho payment completed marka warqadaas intuu ku soo saaro kadib waad ka baxaysaa akoonkaaga ayaad hubinaysaa lacagtii ma ii soo gashay mise ma ii soo galin weli. Okay, sida ujeediinba hadda aniga lacagtii oo ii soo gashay maadaama kol hore aan dalbay lacagtii oo ii soo gashay. Hadda marka keliya waxaan u baahanahay in akoonkeyga aan kacsado. Account detailskaaga halkan baad ka helaysaa, account information ayaad ku dhufsanaysaa meeshaas ayaad ka helaysaa. Marka waxaa kaloo jiro passwordka midka aad samaysatay ayuu automatic u qaadanayaa. Haddii aad rabin waa iska bedelaysaa passwordka MT5ka aad ku gelaysid gaar ayaad u samaysanaysaa. Okay, haddaba aan samaysto change password ayaan leeyahay. Change password markaa dhaho meeshan sida ujeedidba hadda new password ayuu leeyahay oo password cusub gasho ayuu leeyahay. Okay, haddaba passwordka ayaan samaysanayaa kadib MT5ka ayaan sida tegi doonaa waa kicin doonaa insha Allah. Okay, passwordkayga hadda waa diyaarsaday sida ujeediin kadib waxaan leeyahay continue. Marka password adag aad soo gashitid kadib waxaa leedahay continue ayaad leedahay. Okay, okay, wuxuu ku dirayaa marka code ayuu ku dirayaa. Codekaas marka waxaa la rabaa in gmailkaaga aad ka soo qaadatid oo kadibna aad isticmaashid. Okay, okay, 4 number waa ii soo dhacday marka 4 number waa koobiyestay kadib waxaan tagayaa meesha la gelinayo kadib 4 number ayaa gelinayaa kadib waxaan leeyahay continue. Okay, sida ayuu iga bedelay passwordkii marka. Hadda marka MT5kayga passwordkiisa wixiisa oo dhan way ii diyaarsan yihiin. Hadda waxaa tegaynaa marka haddii Baker aan noqdo MT5ka ayaan tegaynaa kadib waa kacsan doonaa insha Allah. Okay, okay, MT5 markaa sidaa ugu maqno kadib waxaan ka dooranaynaa delete noqdo plus markaan ka doorno kadib waxaa dhihi doonaa halkan qoraalka ayaan ku qori doonaa just market magaceeda ayaan ku qori doonaa insha Allah. Just market ayaan dhihi doonaa just marketis. Okay, midka ugu sareeya dooro oo just marketis global LTD ay tahay kadib halkaas soo fur marka ugu horeeyo halkaas soo fur waxaad ka dhigaysaa serverka markaas uu ku yahay live waa marka just market live waaye live 2 iyo live ayay kala yihiin. Live-kana haystaan hadda marka labada meel waxaan gelin doonaa marka login-kii iyo password-kii ayaan gelin doonaa biidhnillah. Waxaan u laabanayaa halkan. Okay, login code-ka aan soo koobiyeysanaa marka insha Allah. Okay, saaxiibayaal login-kii iyo password-kii labadaba waa soo koobiyeystay kadibna waa geliyey halka kore login ku qoran tahay login-ka ayaa geliyey qaybta password ku qoran tahay password-ka ayaan geliyey. Kadib waxaan samayn doonaa haddii Baker aan noqdo login ayaan dhihi doonaa halkan save automatic saaro. So mar walba soo kugu hayo oo mar walba aad u soo galin login-ka aad u sameynin inuu haayo ala rabaa. Marka waxaa dhihin doonaa login bismillah. Just market-keena hadda wuu inoo kacay $30 ay ku jirto sida ujeedidba. Okay, okay, marka aan tagno hadda gudaha waa ujeedaa akoon oo $30 ay ku jirta ayaa inoo furmay. Insha Allah shaqadan waa arki doonaa sida u dardargelin doono. Koley internet si loo hagaajisto casharadii hore ayaan ku sharxay meeshaas ayaa kasoo daawan kartaan biidhnillahi ilbaari. Balance deposit maanta la deposit gareeyay $30 waaye. Waxaa filaa saaxiibayaal inaad si wacan aad u fahanteen oo ila jaan qaadeen insha Allah biidhnillah.
intaan ka gaarayno videogan video ka qurux badan waxaan idin leeyahay saaxiibayaal nabadgelyo.